بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورصحافات كسر بحي حفيز الجلها الدجانكا وكسر حياي حجانك دوق المجال محمود علي فرح كدي مركي أي جلها الدجانكو يسوي مادين شرط دجاج أفري لما تنكي ساعة عن صور دافني وحيقو عن صدين صدق تنقض بصوص عضا كو جلها الدجانكو حقوق باقية shacabka reer Khaatumo meel kasta uu joogo dalka iyo dibadda ha joogo wuxuu ku baaqayaa maalinta ololaha nadaafadda ee 18 May loo diyaar garoobo maalintaas oo la asteeyay 2005 taariikhdu markay ahayd uuna asteeyay maayarkii magaalada Laascaanood Cabdirashiid Barkhadle marka waxaan ka codsanaynaa shacab weynaha reer Khaatumo meel kasta uu joogo hadduu dalka joogo iyo hadduu dibadda joogaba 18 May waxay u astaysan tahay oo Khaatumo iyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn looga asteeyay inay tahay maalintii nadaafadda nadaafaduna haddii aynu si faahfaahino diin ahaan waa shay wanaagsan caafimaad ahaanna waa shay wanaagsan qof kasta oo shacabka reer Khaatumo oo gudaha dalka jooga oo deegaanada tuulooyinka jooga oo jooga ceelasha biyaha laga cabay kaamamka la yiraahdo jooga magaalooyinka waaweyn degmooyinka ama gobolada jooga waxaanu si xushmad looga codsanaynaa inay u diyaar garoobaan maalinta taariikhiga ah 18 May oo ah maalinta nadaafadda ee gobolada Khaatumo talabaad qof kasta oo muwaadina oo reer Khaatumo oo ku nool deegaan kale oo ka baxsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn haddii ay tahay dalka gudihiisa iyo haddii ay tahay dibaddiisaba waxaanu si xushmad looga codsanaynaa inuu maalinta nadaafadda ugu yaraan gurigiisa nadiifiyaa hadduusan magaalada uu joogo nadaafad weyn ka qaban karin ugu yaraan waa inuu gurigiisa iyo agaarkiisa uu nadiifiyaa isagoo u niyoonaya inay tahay maalintii nadaafadda ee 18 May qodobka labaad dhammaan hay'adaha ka hawlgala gobolkan Cayn iyo degmada Buuhoodle iyo ururada dhalinyarada sida ururada haweenka ganacsatada ururada ganacsiga iskaashatooyinka dhammaan xafiiska golaha deegaanka wuxuu ku wargelinayaa inay keenaan aqoonsigoodii iyo shaqada ay ka qabanayaan magaalada Buuhoodle ay keenaan warqadahoodii aqoonsiga iyo tiishaqo ay ka qaban lahaayeen gobolkan Cayn si loola socdo shaqada ay gobolka u qabanayaan ama dadweynaha u qabanayaan iyadoo bari ka maalina taariikhdu xusi doonto qofkii wax u qabtay dalka taasina waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaanu ka codsanaynaa shacabka reer Khaatumo meel kasta uu joogo oo xafiiska golaha deegaanku ka codsanaya in shirweynihii Khaatumo 3 oo muddadii loogu talagalay week dib u dhacay in si dhaqso looga qayb galo shirka loogu diyaar garoobo qof kasta oo dalka jooga ama dibadda joogaabo uu xilqaan iska sameeyo in shirkaasi u dhaco shirkaasi wuxuu dan u yahay dhammaan shacabka degan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee Khaatumo hadduu qabsoomo oo najaxana dhammaan waa najaxaya cid kasta wuxuu baaqaasi quseeyaa cid kasta oo degan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Sool Sanaag iyo Cayn waa la yaqaanaa xuduudaheeda gaatama iyo meesha la yiraahdo yoocada inta u dhaxaysa weyn xagga laamiga haddaan tilmaan ka bixino cid kasta oo degan waxay hoos timaadaa maamulka Khaatumo hadday Caynaba joogaan hadday og joogaan hadday meel kale joogaan Khaatumo waa Khaatumo qolo ma waa deegaankaasina waxa xadeeyay 1937 ilaa 18 waqti aan ku qiyaasayo waxa xadeeyay isticmaalkii waddanka haysan jiray waana heshiiskii ugu dambeeyay ee saddexaad ee beelaha Isaaq iyo dhulbaanta u dhexdhigay marka waxaan ka codsanaynaa shacabka deegaanadaas oo dhan inay u diyaar garoobaan meel kasta joogaan shirka Khaatumo 3 wabillahi tawfiiq warsaxaafadeedkana waxa ku saxeexan ku-xigeenka duqa magaalada Maxamuud Cali Faarax wabillahi tawfiiq waxaan ugu baaqayaa dadweynaha Khaatumo meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inay maalinta si hagar la'aan inay ugu baxaan ololaha nadaafadda 18 May inay baxayaan wax walba diyaar yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا reer Khaatumo gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
بعد السلام maanta oo taariikhdu ay tahay 8 bisha May waxaa golaha deegaanka ka soo baxay war-saxaafadeedkii uu akhriyay afhayeenka golaha deegaanka Salmaan Aadan Cilmi Dheel kaas oo uu ku saxeexnaa duqa ku-xigeenka magaalada ama muxuu ahaa gobolka Cayn Maxamuud Cali Faarax war-saxaafadeedkaas oo ka koobnaa 3 qodob afhayeenku uu akhriyay waa mid maanta waxaan filayaa u baahnaa in la sii daayo war-saxaafadeedkaasi waxaan markaa aan taakiidinayaa shirka Khaatuma 3 soconaya hadda ergooyinkiisii waqtigii la geli lahaa ee shirku uu furmi lahaana uu yahay gabagabo ayadoo dhinac kasta laga diyaariyay shirka wixii loogu talagalay qaybihiisa kala duwan haday amnigii tahay nooc kasta uu yahay iyadoo la diyaariyay gobolkan Cayn gaar ahaan uu ku jiro diyaar garow shirka inuu ka qayb galo oo ergooyinkii la xulay qaarna lagu guda jiro qaarna la xulay waxaan dhammaan reer Khaatuma ugu baaqaynaa haddii aanu nahay golaha deegaanka ee gobolka Cayn inay si habsamiya oo tabaabulsho iyo degdeg uu ku jiro looga qayb qaato shirka Khaatuma 3 ee fooda inugu soo haya ayaamahan soo socda furmi doona haddii alla ka raali noqdo bulshooyinka reer Khaatumo inay ka qayb qaataan shirka Khaatuma 3 oo runtii noqon doona shir muhiim ah oo dhaabadaysan oo cidhiidhiga ka saara bulshooyinka reer Khaatumo kaasoo runtii maanta diyaarsan cid walbana ay u diyaarsan tahay inay ka qayb qaadato shirkaas dadka danaynaya bulshooyinka reer Khaatumo maamulka ay dhisanayaan oo ay ugu horeyso federaalka dawladda federaalka ah iyo caalamka qaybihiisa kala duwan oo dhan ay ka soo qayb gali doonaan haddii alla ka raali noqdo aad iyo aad baanu idin salaameynaa waxaan rajaynaynaa in aad si habsamiya looga qayb qaato shirka dhanka kale waxaa runtii ayana maaragtay soconaya qaybihii yacniga maaragtay gobolka Cayn ee horumarinta ahaa oo ayaguna maaragtay si habsamiya u soconaya sida wadada oo kale oo maaragtay shaqadeedii ay bilaamayso hadda qaybtii labaad haddii uu alla ka raali noqdo